isla magaalada Muqdisho waxa maalintii labaad galay shirweynaha wadatashiga qaran ee hanaanka dib u heshiisiinta oo lagu eegayo gunta khilaafaadka Soomaalida u dhaxeeya iyo sida xal loogu heli karo. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu marti qaaday wakiilada ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ka kala yimi gobolada dalka iyo caasimadda Muqdisho. wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa saaka mar waxa uu tagay xarunta uu shirkaasi ka socdo waxa aanu wareystay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta عبد الفارح سعيد oo loo yaqaan Juxa waxaanu marka hore bal weydiiyay nuxurka shirkani uu xambaarsan yahay shirka dib u heshiisiinta waxa weeye shir looga hadlayo hanaankii loo maray lahaa dib u heshiisiinta si buuxda in loo qeexo colaadda Soomaalida ama khilaafka Soomaalida waxa uu yahay dabadeed laga tala bixiyo mudnaan la kala siiyo si loo wajihi lahaana la khariidadiyo ujeedadu ugu weyn taa weeye in laga helo faham buuxa iyo qaabkii loo mari lahaa maaha shir lagu heshiinayo halkan Google hadeer ma taalo cid lagu heshiisiin mayo laakiin hanaankii loo mari lahaa ayaa hoos laga xariiqaya ergooyin badan baan arkay oo shirka ka qayb galaya oo meel kala duwan ka yimid dadka casuunteen xagee ka kala yimaadeen dhammaan waxay kala yimaadeen deegaamada Soomaalida maamul goboleedyada dhan bay ka yimaadeen waxay kala yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada haday tahay culimada iyo dhaqanka iyo bulshada rayidka iyo aqoon-yahanka iyo dhinac walba bay ka yimaadeen marka saas ay u kala qaybsan yihiin dad badan oo magaalada Muqdisho jooga oo iyana aqoon-yahan u qayb galaan waa jiraan waraaqa muhiim ah ayaa meesha laga soo jeedinaya dhinacyo badan ayaa khilaafka Soomaalida laga eegaya dhinaca dhaqanka laga eegaya dhinaca diinta laga eegaya dhinacyo badan baa laga soo jeedinaya qoraallo waa laga doodaya koox la isku qaybinaya waxa la rabaa inuu ka soo baxo meesha hanaan guud oo muhiim ah oo aan waxba laga tagin wax la isku hayo iyo qaabkii loo wajihi lahaa markii uu soo baxo ugu dambeyn talooyinka shirkani xagee doonaysan inaad ku dabaqdaan waa sax marka ugu dambayso oo soo baxo taa la khariidadeeyo waxa weeye mudnaanna waa la sameeyaa xagee baan ina sugi karin xagee hadir wax ka taagan yihiin u baahan degdeg hadir meel badan oo wax ka taagan yihiin baa iska jira oo la rabaa in hore looga hawl galo hawshan dabeed waxa la rabaa in loo bedelo shaqo hawleed oo qaab loo wajaho oo marka qorshaha dib u heshiisiinta oo noqdo mid loo wada dhan yahay meel xoogiisa la isugu wada saaro qaabkii mar haduu ku qoran yahay marka lagu dabaqo meelihii had heshiisiin looga baahan yahay wasiir hadda waxaad soo qaaday in meelaha qaar haddaba wax ka jirjiraan hiiraan dad baa ku dhintay galgaduud iyo mudug sidaas oo kale intii cilmi baaris iyo shirar lagu jiri lahaa soo ma ahayn in deegaankii la tago dhibaatada wax laga qabto wala soo wadaya waa ku baaqaynaa in culaad la joojiyo waa ka xunahay waxa dhacaya meel walba culaad in la joojiyo u baahanahay waa lagu soo daalay waqti dheer baa lagu jiray wanaag lagu ma helin waa aragnimo in noqoto weeye laakiin dhinaca kale ka fursan mayso waxa la isku hayo maadaama ay muddo dheer qaadatay oo waqti dheer la joogo oo wax iska socoto bal in dib loo eego horta bal maxay isku haynaa ciwaanka shirku waxa way isku daalay maxay noqdana marka taariikhda dib loo malacsado oo hoosta laga xariiqo oo laga wada doodo oo marka tala laga helo waa loo baahan yahay wasiir taniyo koob iyo sagaashankii markii dawladdu dhacday waad ogtahay shirar dib u heshiisiin oo badan baa la qabtay Djibouti Addis Ababa Nairobi magaalooyin badan baa la tagay xitaa markii dambe Muqdisho la isugu yimid intaana ilaa hadda dadku xilliyihiin waxa ma soo korin oo khilaafkii iyo colaadii iyo way taagan yihiin marka shirarkani maxay soo korinayaan aragtidaada ka wasiir ahaan kulay in la shirina waxba ma soo korin marka waxaan u baahanahay wixii waa taagan yihiin waxa ay taagan yihiin hadal in laga daayo maaha marka waa run 10 sano ka hor baa shirku weyn halkan ka dhacay dawladii Cabdullaahi Yuusuf iyo Geedi bay ahaayeen talooyin ka soo baxay wax kamid ah in la sii wado wixii waa taagan yihiin marka waxaan filayaa marna si dhab ah inaan la isu dul istaagin khilaafka Soomaalida dhinaca hadaadka eegtay waa khilaaf nool waa khilaaf nool waxaan leeyahay waxa weeye waxa la isku hayaa siyaasadii waxa la isku hayaa khayraadkii waxa la isku hayaa awoodii waxa la isku hayaa qabkii marka dhinacyo badan baa la isaga hayaa marka waa wax nool waxaana ilaa ay bogga wali lama xirin marka waxaan rabnaa bogga xiritaankiisa inaan wadno cilmi baaristiisa inaan wadno dhib joojinta inaan wadno inaan soo dhaxwadnaa rabnaa dib u heshiisiin marka laga hadlayo cid kasto qori sidatay cid kasto dagaal ku jirta laga hadlaya shabaab waxay kamid yihiin cududaha wadanka ka jira ee dagaalada ku jira marka iyaga dib u heshiisiinta miyaan la eegay nimanka wali wada hadal nooma fura oo jeclaan lahayn wadada ku jiraan oo ay intay qolaada dagaalka iska dhigaan dhahan wada hadal baan ka galeynaa marka waxay dadka Soomaaliyeed kamid ahaan lahaayeen marka miiska inay soo fariistaan oo wada hadal jecel yihiin waa qoriga la dhigo oo la wada hadlo wixii la wada taban Soomaaliyeed dhan bay ka dhaxaysaa dalkan dadku dhan ka dhaxeeya danta la wada leeyahay cidina gaar uma laha dadka Soomaaliyeed waxay isku hayeen ka heshiiyaan bay tahay